haddii uu doono Allaha latiifka ah inuu kaaga hiiliyo arrin sabab yaab leh ayuu keenaa. Allaha latiifka ah haddii uu doono inuu ku maamuso qof aanad weligaa wanaag ka filayn ayaa noqda sababta ugu weyn ee aad ku gaadhayso. Allaha latiifka ah amiintii uu doonay inuu xabsiga ka saaro Yuusuf calayhi salaam ma dildilaacinin gidaaradii xabsiga, ma farin malag inuu nafta ka saaro dulmifalayaashii, samadana kama soo dejin qaylo xididada u siibtay albaabadii iyo qufulladii xadiidka ahaa. laakiin kaliya boqorkii ayaa ku riyooday riyo qarsoon oo sabab u noqotay in silsiladihii dulmifalayaasha laga furo Yuusufkii runta badnaa. waqtigii Allah subxaanahu wa tacaala uu doonay inuu Muuse calayhi salaam u soo celiyo hooyadii, ma dhicin dagaal ay kacdoon wadayaashii reer bani Israa'iil kaga hortageen kibirkii Fircoon, kaasoo ay ku soo ceshanayeen sharaftoodii hore, balse afkii Muuse ayaa diiday inuu jaqo caanihii dumar kale. falkan qarsoon ayaa Muuse ku soo celiyay dhabtii hooyadii murugo dheer kadib. amiintii uu doonay Allaha latiifka ah in suubanaheeni sallallahu calayhi wasallam iyo ciddii la jirtayba uu ka saaro cadaabtii iyo laagtii reer bani Haashim, ma soo dirin qaylo gilgishay Quraysh, balse kaliya waxa uu soo diray aboor cunay heshiiskii gardarada iyo xadgudubka ahaa. Qurayshna waxay ku waabariisatay gidaaradii qaawanayd oo uu cunay noolo aanay arkaynin. Ilaahay waa tudid badnee, arrimaha ugu sahlan ayuuna ku qadaraa maqaadiirta ugu waaweyn. doonistiisu waxay ku dhammaystirantaa waxa uu doono, addoonkiisana kuma baraarugsana inay wax dhaceen. Allow inaga yeel addoommadaadii aad ugu naxariisatay labada daarood.